maraykanka ayaa qorsheynaya in canshuur cusub oo dhan 3.5 boqolkiiba ku soo rogo lacagaha dibadda loo diro taasoo bilaaban doonta 1 Janaayo ee sanadka soo aadan iyadoo qayb ka ah miisaaniyadda madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee lagu magacaabo One Big Beautiful Bill. canshuurtan ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta lacagaha xawaaladaha loogu diro dalalka soo koraya sida Soomaaliya, Liberia iyo El Salvador, gaar ahaan xilli Maraykanku hoos u dhigay gargaarkii uu siin jiray dalalkaasi. sanadkii 2023 Soomaalida dibadda waxay dalkooda u direen lacag dhan 1.73 bilyan taasoo u dhiganta ilaa iyo 50% wax soo saarka guud ee dalka. lacagahan ayaa daboola baahiyo aasaasi ah sida cunno, waxbarasho, biyo iyo caafimaad. haddaba canshuurta cusubi waxaa la filayaa inay sababi karto hoos u dhac ilaa iyo 5.6 boqolkiiba oo ku yimaada xawaaladaha rasmiga ah, iyadoo sidoo kalena ay sare u qaadayso qarshaadka adeegyada xawaaladaha. waxaa intaasi dheer, Maraykanka ayaa horaantii sanadkan jaray in ka badan 70% mid ka mid ah gargaarkii uu siin jiray Soomaaliya, iyadoo loo marsiin jiray hay'adda USAID. isku darka gargaar la'aanta iyo canshuurta cusub ayaa khatar gelin kartaa malaayiin qoys oo noloshooda ku tiirsan tahay lacagahaasi. khubarada dhaqaalaha waxay ku talinayaan in halkii canshuurta la saari lahaa xawaaladaha la yareeyo qarshaadka dirista lacagaha oo hadda celcelis ahaan gaaraya 6.6 boqolkiiba, iyadoo bartilmaameedka Qaramada Midoobay yahay 3% oo keliya. haddii la gaaro heerkaasi, waxaa laga hortegi karaa in la waayo taageero lacageed oo muhiim ah oo gaaraya bilyanis dollar ah. inkastoo canshuurtan ay wajahday mucaarado, haddana waxaa la filayaa in la dhaqangeliyo iyadoo Maraykanka uu ka helayo keliya 10 bilyan 10 sano gudahooda, halka dalalka qaata ay luminayaan ku dhowaad 2.5 bilyan sanadkii. ugu dambaynna, isbeddelkan wuxuu khatar weyn ku yeelan karaa nolosha qoysaska Soomaaliyeed ee hela lacagaha u dhaxeeya $50 ilaa iyo $200 bishii.